kulankan oo ah mid lagu dhiirigelinayo ardayda wax ka barata dugsiga sare ee degmada iyo goori ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaan Cabdisamed Kayse Maxamuud qaar kamid ah odayaasha iyo cuqaasha gobolka Sool maamulka iyo macallimiinta jaamacadaha Golis iyo Ilays maamulka iyo macallimiinta dugsiga sare iyo goori akademiyada Cakaara abwaaniin ardayda wax ka dhigata dugsigan iyo marti sharaf kale dhammaan mas'uuliyiinta madasha ka hadlay ayaa si isku mid ah uga hadlay faa'iidada ay waxbarashadu u leedahay bulshada iyagoo ardayda uga digay falalka xunxun ay kamid yihiin tahriibka iyo mukhadaraadka sida la sheegay anigu aan gudoomiyaha guddiga fulinta guddiga xigidda jaamacadda ummadda Ilays marka waxay ballan qaadaysaa gaar ahaan maanta Yogoori la joogo ardayda ka soo baxda dugsiga sare Yogoori inay ugu yaraan 20 arday deeq waxbarasho siin doonto marka ay ka soo baxaan ilaa anagoo ah mufti ballaaran oo ka socda jaamacadda Golis ayaa ka soo qayb galnay ujeedada aan u nimanay waxay ahayd inaan dhiirigelino ardayda secondary-ga ee magaalada Yogoori sida aad ogtihiin maanta ardayda dunida waxa lagu tartamayaa waa aqoon ama waa cilmi jaamacadda Golisna way ka go'an tahay in bulshadeeda ay ka xaqabtirto cilmiga kala duwan qaybihiisa kala duwan iyadoo jaamacaddu ay diyaar ku tahay ilaa iyo 10 faculty oo kala duwan oo ay ka mid yihiin kulliyadaha caafimaadka sida nursing-ki midwifery-gi laboratory-gi kulliyadaha IT-ga community development-ga iyo qaybihi kala duwanaa waxaan doonaynaa in maaragtay aad iyo aad maaragtay loo sii dardargeliyo iskuulka hadeerto wuxuu ka kooban yahay 3 fasal 1 iyo 2 iyo 3 hase ahaatee waxaanu qaadanaa bishii waxaanu qaadanaa 144 sabab baan qaadanaa bishii guud ahaan iskuulkaas xagga materialka ayuu muddooyin u xilxidhaabaan aad iyo aad baan uga xumahay wasaaradda waxbarashada gobolka in Yogoori oo degmo weyn oo magaalo qadiimiya oo dadkeedu wax baranayo oo diyaar yahay in iskuulkii isu xidhxidho waxyaabo yar yar oo la heli karo mushaar iyo wax la mid arrinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka aad baan ugu dhaliilay ilbaxnimadu sidee baa loo ilbaxay bulshooyinku sidee bay u ilbaxeen ilbaxnimadu waa la isku dayo maxaa lagu dayay bulsho wacan baa lagu dayay qaar kamid ah abwaanintii madasha ka hadlay ayaa iyaguna dareenkooda suugaaneed ku cabiray faa'iidada ay waxbarashadu u leedahay bulshada iyadoo ardayda ku dhiirigeliyay inay sii wataan waxbarashadooda ragga tagay ee hormaray talaabada hore u dhigay tab iyo xeel bay heleen culum bay tiigsadeen muraadkoodii tigtigeen kamay tagin ee horgale ku taame inay wadaan maasadu iyo ila tafmina taraariixin oo dhacmine aan taabto halkan la rabay haddaan hadallada taraxo tibaaxoon hoos u galo tusmada maasada sharaxo tiiraanyaan ooyayaa inaan toosnaan jeclahay istaakulinaan jeclahay cilmiga taabnaan jeclahay tabtiisa helnaan jeclahay jahliga tirtirnaan jeclahay xumaha tuurnaan jeclahay qabiilka tufnaan jeclahay tihraaca helnaan jeclahay hadday dhabar dhaaman tahay la dhalan rogay maasadii dhalaama ku qayliyeen dhegaysta waalan yahay dhaqan joogsadhambalada la isu diro dadkii dhiilaabaya dhawaaq baa meel ka baxay waxbaa dhacay baa la yidhi dhurwaa baa gacanti guray markaasaa dhidar ku kacay dhalaalkii la isku kulankan oo soo qabanqaabiyey xildhibaan Cabdisamed Kayse Maxamuud ayaa ujeedkiisu ah sidii ardayda loogu dhiirigelin lahaa waxbarashada isla markaasna ay ardayda wax ka barata dugsiga sare ee Yogoori ay deeq waxbarasho uga heli lahaayeen jaamacadaha ka jira guud ahaan geeyiga ay Soomaalidu degto Samiir Saciid bila telefishinka madaxa bannaan ee bulsho la saacanood